ninkan waxa uu sameynayo ma ahan farxalasho ama gacan dhaqasho wuxuu hubinayaa heerka tayada caanaha intuusan iibsan ka hor. طبعا sida caadiga ah ee aan wada naqaano marka uu qof suuqa doonayo caano inuu ka soo iibsado waa inuu qofku kala yaqaan noocyada kala duwan ee caanaha sida garoor, suusac, mayac, garow, caano fadhi ama dhaay adba sida aad u taqaanid. laakiin hadii qofku intaas uusan aqoon waxa suurtagal ah in laga soo iibiyo caano barax ah ama kuwa shalay ah. dalka Hindiya iyo Bangladesh marka aad joogtid se intaasoo dhan inaad taqaanid oo gacantaada ayaa macallin ku ahaa. xarfiyan weelka caanaha ayaad gacanta dalaq siinaysa si aad u dareentid heerkulka caanaha. micnaha hadii ay qandacan yihiin waa astaan muujinaysa inay caanaha muddo yar ka hor in la soo lisay. sidoo kale gacanta waxaa lagu dareemaa in caanaha ay biyo ku badan yihiin oo ay yihiin kuwa bibiya. mararka qaar intaas kuma filno oo gacanta ayaaba la sii ursadaa si loo xaqiijiyo inay caanuhu ahaayeen kuwa shalay ah oo la soo qandiciyay ama kuwa fresh ah oo hadeertaan la soo lisay. ilaa uu qofku ka helo caano buuxiyay shuruudihii muujinayay inay caanuhu dhaay ama fresh yihiin, sidaas ayuu weel walba oo suuq yaal gacanta u gelinayaa. laakiin ibtilada ugu daran waxa ay tahay qofka marka uu helo caano uu ku qanco isagoo aan ilowsanayn in tobaneeyo, labaatameeyo ama boqolaal qof iska dhex inay weelkaas ama caanahaas soo gacnayeen ayuu iibsanayaa. meesha lagama yaqaano virus iyo bacteria iyo cudur iyo indhaha hadeertaan aad ku daawanayso kuma daawanayaan. ayaga waxay u arkaan si caadi ah caano qofka iska tijaabinayo iska fiirinayo. Hindiya iyo Bangladesh hadii aad taqaanid qof markaas meeshaas ku nool ama arday ku ah weydii caanahu cabo inuu gacmeeyo ama aan la soo gacnayo inuu cabo. caadi baa runtii qof walba wadan walba dhaqan iyo waxyaabo cajiib ah mucjiso u leh, laakiin tan tul qaadan kara ma inkastoo caanaha dhowdii guriga marka la geeyo la karkarinayo jeermiska iyo bakteeriyada meesha ay ku dhimanayaan haddana nafta kuma siinayso caana saas loo soo gacnay inaad cabtid.